xalay abaarasaq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 51 daqiiqo ayaa waxa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qoliyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhawaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo burburiyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga ah dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan waxay faahfaahin dheeraad ah ka soo baxayaan weeraray iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku teesan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa xalay waxa ka dhacay gaar ahaan saldhigga degmadaasi qarax iyo sidoo kale weerar toos ah oo u dhaxeeyay ciidamada ammaanka ee kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday saqdhexe degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qaraxaasi waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo sidoo kale dad shacab ah gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxay kooxda Al-Shabaab ku dhufatay saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaana xigay dagaal toos ah oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa ku waramaya inay maqleen qarax aad u weyn oo laga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmada waxaana xigay dagaal toos ah sida ay sheegeen cabsi badan ayaa soo wajahday dadka ku dhaqan xalay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir inkastoo markii dambe uu istaagay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu sheegay in saldhigga degmada Kaxda ay weerar ku qaadeen kooxda Al-Shabaab isla markaana weerarkaas uu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay waxaana xigay sida uu sheegay gudoomiyaha dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab sidoo kale gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf ayaa sheegay inay fashiliyeen weerarkaasi isla markaana ciidamada ammaanka ay ka hortageen isagoo sheegay in wixii faahfaahin oo ku saabsan arintaasi ay warbaahinta la wadaagi doonaan saacado badan ayuu socday dagaalka u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab oo xalay ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyadoona qaraxa halkaasi ka dhacay uu saameyn u geystay dadka deegaanka oo ka agdhawaa saldhigga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxaasi ayaan la ogeyn maadaama qaraxa uu dhacay xilli dambe oo habeen ah oo dadka ay wada jiifaan deegaanka Dar es Salaam ee gobolka Banaadir waxa ka dhacay qarax labaad iyadoona wararka qaar ay sheegayaan bar kontarool ee ciidamada dawladda ay ku leeyihiin ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen qaraxa kadib waxa xigay sida ay wararka sheegayaan dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab iyadoona khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi aan la ogeyn sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir uu ka dhacay qarax wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo bartiisa Facebook qoraal kooban soo dhigay oo kaga hadlaya weerarada iyo qaraxyada ka dhacay xalay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in kooxaha argagixisada ay weerar ku soo qaadeen saacadu markay ahayd 7 habeenimo daafaha magaalada Muqdisho balse ciidamada amniga ayaa ka difaacay shacabka kooxaha nabadiidka ah ayuu qoraalkiisa ku sheegay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur sidoo kale wasiirka ayaa sheegay faahfaahin ku saabsan dagaaladaasi qaraxyada ay ciidamada booliiska la wadaagi doonaan shacabka sidoo kale wararka ka imaanaya deegaanka Calamada ee duleedka Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ay halkaasi ku dagaalameen kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontarool ee ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaankaasi dadka deegaanka ayaa ku waramaya inay maqlayeen dhawaqa rasaas aad u culus oo u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in wax loo malaynayo inay yihiin madaafiic ay ku dhaceen degmooyinka Shibis iyo Shangaani shacabka Muqdisho sanado kadib xalay waxay u ahayd habeen cabsi maadaama degmooyinka iyo duleedkaba ay ka dhaceen qaraxyo aad u weyn iyo sidoo kale weerar toos ah oo ay qaadeen kooxda Al-Shabaab xiriir kala duwan oo la sameeyay laamaha ammaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir ayaa inoo suurtagelay weysay inaan qadka telefoonka ku haleelno si aan wax ugu weydiino dagaalada iyo qaraxyada xalay ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho xalay abaarasaq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 51 daqiiqo ayaa waxa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka
qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhawaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo barbariyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga ah dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan kooxaha nabadiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas kaliya sababta degmada Kaxda loo weeraray waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baacsanay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeellada Hoose iyo meesha iska galaan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas sidoo kale isla xalay waxa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho dhismooyinka wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado intaas waaye waxa lagu weeraray Daarusalaam waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday goobtaasna waxa waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo rayida oo gaaray ilaa 16 qofood dhaawac waxa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay Ilaahay naxariista janahasiga gacanka xaq daran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxa ku waxyeeloway ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida booliis military iyo kooxaha ka shaqeeya ammaanka waxaan ugu digayaa bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaqa rasaasta waxaa nooga qiimo badan in nabadda magaalada Muqdisho ay sugan tahay magaalada Muqdishona ay tahay nabad kaliya waxa la dhibsanayaa waxay tahay horumarka ay ku tilaabsatay magaalada Muqdisho dhanka ammaanka dhismaha horumarka dhaqan-dhaqaale waa intaas waxay kooxaha nabadiidka ka dirirayaan laakiin waxaan u balan qaadaynaa bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogaan in ciidanka booliiska Soomaaliyeed marnaba ka dibcaynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibcaynin in dhiigga iyo naftaba loo huro ummadda Soomaaliyeed ilaa haddana ciidanka booliiska howlgalkii wada labada degmo waa laga howlgalayaa wixii ka soo kordhana waa idin la soo socodsiin doonaa insha Allah waana mahadsantihiin waajira waa gaari xalaysan oo saldhigga dhex yaalay sidoo kale waxay sii dhibaateeyeen gawaari guryo ku dhigan saldhigga yaaleen oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd ciidankiina wali baxsanayo gaari meel dhaxay ooga tageen marka insha Allah wax oo problem baawur iyo wax muhiim ah saas ma qaadan laakiin waxyeelada bulshada Soomaaliyeed nooga dhib badan taasna waa ka difaacnay siday wax rabeen wax uma noqonin insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa in intii bukootay ee meeshaas ku waxyeelay ka bogsiyo inta dhimateen ilaahayna u naxariisto waana mahadsantihiin